gabadhan bal aan isla dhageysano waxa ay leedahay وحيري دمركو يعني ما نقول كران إن حل قطعان لأنه نفتي دي بالأمور كلام إننا ما مشوا مركا حلم قاضي كران حديث وحصاق قاضنا ياله أفلح قوم ولو أمرهم امرأة لكن تذكر فكر كاسلة وحي اللوبة يعني إنه قرآنكو أماني حكم كي بالقيس وحي قف دمرة حي حكومة ساهد دولة سبع waxay leedahay dadka fikirkaas leh oo xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ula jeedaayay wax ugu horeeya dadkaas ay sheegayso soo galayaan waa nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasi waxay iloobayaan quraanka oo amaanay balqiis oo markaasi ahayd boqoradii saba ay iloobayaan boqoradaasi ay sheegtay kama aysan mid ahayn ummadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ee waxay kamid ahayd nabi suleymaan ummadiisa ay kamid ahayd marka waxay soo daliishanaysaa ummadihii hore waxayna ka tagaysaa xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri lan yuflaha qawmun wallow amrahum imra'a qawm liibanaan ay u talisay qof dumar ah sidoo kale bilqiis ma aysan ahayn qafta go'aanka qaadanaysay sida ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu noogu sheegay waxay tiri ma kuntu qaadi'atan amran hatta tashhadun ma aanan ahayn mid go'aanka goosata ilaa idinka aad soo xadirtaan dad markaasi madaxweyne ay lahayd rag ka kooban kuwaas ay la tashan jirtay waana markaasi dumarka taliye lagu leeyahay ee madaxda ah intooda badan go'aan ma qaataan ayaga waxa go'aanka markaasi waa magac u yaal ayaga go'aankana waxa soo dhiibo dad markaasi ayada gadaasheeda ayaa laga soo dhiibaa way marka gabdhaha kale waxaan leeyahay ha ku daysanina gabdhaha markaasi ka hor imaanayo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam ee naqdinayo markaasi u ololeynayo inay gabdhaha taliyaan gabdhaha mas'uul ayaa laga yahay waxaana mas'uul ka ah ragga ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu sheegay ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa ragga ayaa mas'uul ka ah dumarka ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku leeyahay maadaama dumarka hatta nafteeda mas'uul looga dhigi waayo hadii markaasi mas'uul laga dhigayo waxa mas'uul looga dhigi la nafteeda ha isbixisa ayaa la dhihi lahaa maadaama marka nafteeda aan mas'uul looga dhigin wax kalena mas'uul kama noqon karto